السلام عليكم أصحاب السولو فاميلي ميل كستو aad joogtaan walaalkiin suluba idin la cid wanaagsan alxamdulillaah waxaan u socnaa goobtii lagu ciideeyay salaada ciidda lagu soo tukanayay daawasho wanaagsan insha Allah waxaan sameyn doonaa muuqaal aad u qurux badan sida looga ciiday magaalada Boorame aad kale la asxaabta nala socda oo qurux badan aan soo doonaa asxaabta in dhaxgalno faanti sida Boorame lagu ciidanay tusno nala socda markaa waxay la joogaa injineer Ciro kusoo dhaw Sulu Family oo ku dhaw saaxib aad iyo aad Sulu Family waxaad noo sheegtaa ama aad noo cabirtaa munaasabadda ciida bal dareenkaaga noo cabir dareenkayga horta mid la qiyaasi karo la soo koobi karo maaha waqtiyaad u fiican iyo ciidana nagu soo beegantay marka ciidana waa ciid aad iyo aad igu qiimo badan aad igu weyn waana ciid iyo carafay ugu dambaysan magaalada Boorame ku ciido waa ciid kugu dambaysan magaalada Boorame ku ciido insha Allah oo saas rajaynaya waaya ma jirtaa dad aad garanaysaa munaasabadda ciidda darteed aad salaan hawada marinayso aad iyo aad baa u jiraan waa dad aan soo koobi karayn ugu horeyn familygayga oo in badan aan kala dheernahay iyo waxay ku xigaa asxaabteyda qaarkood halkan ay la joogaan qaarkoodna iga maqan yihiin haddaan idhaahdo magacyadoodan tirinaya laga dhammaan maayo muuqaal dhamay noqonayaan markaa qulubtaan ka wada salaamay familygayga iyo asxaabteyda waaya saaxib waa mahadsantahay ciid wanaagsan iminkana waxaa ila joogaa cumar Soomaali abwaan ku soo dhawo Sulu Family waad mahadsantahay waa dhowahay nabadon waxaad noo cabirtaa dareenkaaga noo cabir maanta والله الحمد لله ما تدرينكيga lama koobi karo ciid wanaagsan baa leeyahay dhammaan Soomaalida sanadkiisa kale ilaahay waxaan ku leeyahay nabad qab iyo barwaaqo iyo waxaan ku leeyahay bashbash inuu gaarsiiyo dhammaan muslimiintana ilaahay waxaan ku leeyahay hagu dhiga sanad wanaagsan aad iyo aad ma jirtaa cid salaam si gaar ah salaam ma sha Allah waxaan salaamayaa rag badan oo asxaabtayda ah familygaygu waxaan ku leeyahay aan soo koobi karin si gaar ah hooyada iyo aabahay walaalahay aad baan u salaamayaa sidoo kale asxaabtayda waa salaamayaa rag waxaan ku leeyahay waxbarashada aynu isla soo wada bilownay ilaa dugsiga hoose ilaa maanta jaamacada isla dhameynay raggaas soo kala duwan oo walaalku soo dhaw Sulu Family waxaan ku dhaw walaalo ma santahay adigoo magacaaga noogu bilaabaya noona sheegaynay dareenka farxadda ciida noo cabiraya bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Jairo Buta Ismaaciil maanta wax farxad noo inaan ku ciideyno magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxay leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair ilaa sanadkiisa la gaarsiiyo bulshada barwaaqo iyo caafimaad qab waxaan oo kale magaranaysaa halkan ciidda farxadda u daraya familkayga ugu sugan magaalada Boosaaso hooyaday Kinsiir Abdiraxmaan iyo aabbahay Bootaan Mukaal iyo dhammaan walaalahay ku kala sugan dalka dibadda waxay leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair magacaaga ku bilaabaya noona cabiraya dareenkaaga farxadda ku sugan waan ognahay kale waa la faraxsan yahay magacayga horta ugu horeey waa Maxamed Cabdulle Xarago waa ku dhaw horta Sulu Family aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta qayb ka ahaado dadka lagu marti qaaday Sulu Family haddaan ka hadlo dareenkayga aad baan ugu faraxsanahay ciidii quruxda badnayd maalintii weynayd maalintii fadliga badnayd oo si qurux badan noogu dhacday dhammaanteen waxaan leenahay Sulu Family magacayga waa Cabdinaas Shuuriye Axmed Sulu Official dhammaan waa wada salaamaya dunida daafeeda meel alle ka joogaan ciid mubaarak oo antu bikhair ciidana ciideeda kale Allah nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo Sulu Official lana wada salaamaya aad iyo aad saaxiib mid sida dad aad si gaar ah u salaamayso munaasabadda ciidda darteed anigu dadka asxaabteyda dhammaan ciidaas ka badan yihiin dhammaantood wada salaamaya mana soo koobi karo kale waa aniga waxaan kamid ahay asxaabta Sulu Official
mar walbana waa la socdaa aad baan u jeclaa dhibatiin waaya saaxiib ciid wanaagsan iminkana waxaa ila jooga walaal garaaf waxaan leeyahay bal walaal garaaf kusoo dhowo sulub family adigoo dareenkaaga cabiraya maasha allah waa dhowahay sulub mustafa sulub ciid mubaarak ciid wanaagsan كل عام وانتم بخير aan leenahay maanta waa maalin farxadeed aad ayaan u faraxsanahay waa maalin ciid ah marka waxaan leeyahay sulubow maanta xaafadaada waxaa laga rabaa wankii ma gowracdo wankii waa diyaarsan yahay waxaa ku yidhi bal ma jirtaa dad aad si gaara u salaamayso oo aad munaasabadda ciidda salaan hawada u marinayso waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan salaamayaa familkayga waxaan salaamayaa aabbahay waxaan salaamayaa hooyaday waxaan salaamayaa walaalahay dhammaantood diyaal asxaabteyda aan isku galaaska nahay iyo dhammaan xitaa sulub family ku daraan salaamayaa ayagan waa saaxiib waa maasid niyaanu ma iska dhowahay horaa sulub uga tirsanaa hadda sida waxaan leeyahay ciid mubaarak intaani aqoon waa cabdalla axmed maxamed waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta meel walba joogaan كل عام وانتم بخير إلهي عيد العيد كلا عاطمات خيري بشبشي برواقي أمن بهيني وقاسيو بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وشرورك عبد الحكيم أحمد khibradayg naanaystiisu ay tahay sharwaarka cabdixakiim oo suldaanku magac dheer waxaan hambalyada ciidda aan la wadaagaya una dirayaa ummadda islaamka meel walba ay joogaan gaar ahaan magaalada tan aan ku ciiday boorama xaruntii aqoonta waxaan leeyahay taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal anigu waa maxamed cabduuli diiri cabdi waxaan ku noolahay magaalada boorama ummadda islaamka waxaan leeyahay ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhair meel walba aad ku nooshihiin waxaan leeyahay ciidan ciideeda kale ilaahay khayr iyo bashbash nagu gaarsiiyo ciise runtii haddaan ka warramo maanta dareenkaygu aad buu uga duwan yahay mararkii kale runtii waa markii ugu horreysay aan magaalada boorama ku ciidayo aad buu uga gedisan yahay de markay ay tahay markii kugu horreyso oo meel aad ku ciidaysana de taariikhday kugu gelaysaa waadna mahadsan tahay kugu horreysay oo aad boorama ku ciido ma jiraan waxyaalaha kula yaabannaa laakiin haddana waxuma ku soo koobayaa la yaab baynu aragnay waagaas aad baan u salaamayaa waad mahadsan tahay waa ku dhawaay saaxiib sulub aad iyo aad u mahadsantahay marka hore ciid wanaagsan dhammaan asxaabtaadana waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikhair taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal والله ما شاء الله الحمد لله مقالدني بورما كو عيدني جوي فرحدات مالين فرحدات مالين بخران waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta bay joogaan ciid wanaagsan muuqaalkii quruxda badnaa ee saaka aan soo bilownay ilaa bilowgaan guriga ka soo baxnay ilaa meelihii aan soo marnay dadkaan wareysanay muuqaalkii aadka quruxda badnaa inanka noo duubay waa cabdinaasir shubka saaxiib 2 iyo 3 bal sulub family horta assalaamu calaykum dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid caafiya ciidan ciideeda kaleeto ilaahay khayr iyo barwaaqo bashbash Allah nagu gaarsiiyo sidoo kale waxaan la qaybsanayaa ciid ama aan halkan ka salaamayaa dhammaan familigayga walaalahay ugu horeeyaan iyo hooyaday aabahay hooyaday Caasha Cabdi Maalin iyo aabahay Maxamed Xuseen waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid caafiya iyo dhammaan walaalahay waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulli arkaysi boorama si loogu ciiday boorama waxaan u maleynayaa kulli ciidii ugu dambeysay tahay aan ku ciidaa maadaama 4 sano soo joogo magaalada ma sha Allah waa islaamay dhammaan ummadda Soomaaliyeed waayahay gabadha qurux badan iga daa waayahay asxaabta sulub family muuqaalkeeni halkan ayuu ku dhan yahay ama aan ku soo gunaanay waxaan idinka codsanaa si ay sharafi ku dheehan tahay inaad muuqaalkan aad sii share garaysaan like-na aad saartaan subscribe-na aad nagu caawisaan sidoo kale waxaan idin rajaynayaa ciid wanaagsan